إلهي قد بكيت دما عليهم وقلبي موجع طرفي كسير أبيت وفي الفؤاد جراح وأسرى تقيض مضاجعي فأنا الأسير. إلهي قد بكيت دما عليهم وقلبي موجع طرفي كسير أبيت وفي الفؤاد جراح وأسرى تقيض مضاجعي فأنا الأسير. إلهي قد بكيت دما عليهم وقلبي موجع طرفي كسير أبيت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها المشاهدون، أيها المسلمون جميعا، أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وتحنيه نوسو السعودي لنا مقعدحي الأسرة السعيدة، qoyska wanaagsan iyo qaabka ay shareecadeenu nagu qaabaysa. fadhi ugu dambeeyay waxaanu kaga hadalnay yaan ka guursadaa ragga, yaan ka guursadaa dumarka. xalaqadan iyo fadhigan biidnillaahi subxaanahu wa tacaala waxaan kaga hadli doonaa waad heshaye ma haysan kartaa. nicmo walba in nicmo la helaayo ma adko, laakiin nicmadaas sidii lagu haysan lahaa weeye midda adag. gabadhii aan kuu soo tilmaamay baad heshay, sheeke iyo haasaawo sharci ah baa idin dhex maray. sharci waxaan ka wadaa maanta da'yarteenni iyo dhallinyaradeenna intooda badan, ilaa man raxima rabbi, cid yaroo alla u naxariistay ma ahane, qaabkay u wada haasaawaan iyo qaabkay u wada sheekaystaan in badan oo ka mida shareecada ma waafaqsano. sidaa daraaddeed ayaa waxaa arkaysaa sheeko sanado soconaysa, daacad baan laga ahayn, daacad lagama aha. waxaad arkaysaa laba qof oon isqabinoo 24 sac wada hadlaysa. baahidu intaa way ka koobnayd. ma igu qanacday? waan kugu qancaye, isoo weydii, asxaabta isoo weydii, yuu saaxiibe la yahay dheh, ii soo dir dad anugu aanan ogeyn, si kastaba igu baadh. gabadha u dhuudhuuma haddaad doonayso, xataa iyadoo dayacan fiiri, wejigaad ka arki kartaa. way ku qancisay, waalidkeed u sheeg. inaad la sheekaysanayso waa arrin fiican, adigay kuu fiican tahay. markaad la sheekaysato ood iswaafaqdaan, waxa meesha ka imaanaya waa guurkii. guurku wuxuu u baahan yahay qofkii la guurin lahaa oo gabadha, qofkii loo guurin lahaa oo ninka ah, ciddii gabadha weliga u noqon lahaydoo ama aabbo ama walaal ama adeer ama awow dhinaca wixii ka imaada xagga aabbaha, iyo laba maqhraati oo caadiliin oo raga. meherkuna asaguna ku dar biidnillaahi subxaanahu wa tacaala, inkastoosa arkaanta uusan ku jirin, oo gabadha iyadoon meherba loo magacaabin waa la meherin karaa. waxaa dardaaranigaa intaan meesha aana ka sii tegin, meherkiinu waa inuu koobnaado. maxaa yeele nabigaa u duceeyey sala allahu calayh wasalam, gabadh walba gabadhay ka meher yartahay bay ka baraka badan tahay. maanta meherkeennu waa faan, maanta meherkeennu waa fakhri. in la isku faantamo, in lagu faantamo la yidhahdo, xataa ninka uu dhaho ku meheri ma mar baan siinayaa, iskaga meheri. ha la dhaho gabadhii maxaa la yidhahdaa ina heblaayo ahayd waxaasaa lagu meheriyey, ha la dhehee. ayadana waxay leedahay mar un halay dhaho suun dahaba iyo maxaa la intaasoo dahaba iyo intaasoo lacaga, intaasoo doolaar ayaa lagu meheriyey, ha la dhaho.
ninka waxaa laga yaabaa inayna xataa niyadiisu ku jira inuu siin doono ayadana waxaa laga yaabaa inuu wayba taqaanaaba waa nin faqiir oo miskiina wax badan maba haystaba wax badan ba ninkan ma haysto marka arrimaha waa in dib loogu noqdaa biidni illaahi subxaanahu jala wacalaa idan caqdigu markuu nooca u dhacayo arrimaha dhaca waxaa ka mid ah waxa loo yaqaano aroos aroos walba aroosku ka kooban yahay aroos walba aroosku ka kharash yar yahay aroos walba aroosku ka macsi yar yahay aroos walba arooska aan lagu sii daahin waa ka baraka badan yahi siduu meherka yarba u baraka badnaa siduu meherka yarba uu khayr badnaa ayaa aroosku inuu kooban yahay la doonayaa maanta arooskeennu sidee u dhacaa mas-uuliyadda 90% dumarkaa qaadaya raggu ma qaadayaan dumarkaa qaadaya 90%. haweenaydu waxay ku leedahay caawa gabadhaydu halkaa habeen bay adduunka ku leedahay gabadhaadu habeen bay dhalato waad ku faraxdayoo maalinta 7aadna wan baad ka qashay saas ma maalintii 2aadna waad ku farxaysaayo guur baad u guurinaysaa laakiin farxadda aad sheegaysaay waa farxadee maalintay leedahay waa maalin qabri baa sugaya iyadoo qaawan oo ay rabbi hor istaagi doonto subxaanahu wa tacaala waxaad arkaysaa gabadh farta lagu fiiqo oo wadaadka ah magaalo dhan markii la soo gaaro gabadheeda in la guuriyo 100 qiil bay dhinacyada kala soo baxaysaa ayadan kari waaye iyo ayadii maxaan ka sameeyaa iyo ma banaankan ku sii daayaa iyo yacni ayadii baa saa rabta iyo eedadeed baa rabta iyo habaryarteed baa rabta iyo 100 qiil baa lala soo bixi walidaalika habeenka jumcada waa cilaansaar habeenka jumcada cilaan baa la saarayaa waa xaflad gooni ah wey maalintii ragga akhyaarta iyo culummada ugaasyada iyo ciddii xil loo yeedhi karo kalaa loo yeedhi waxaa laskaga imaanayaa kanada iyo maraykan iyo yurub khayran kharash badan baa baxay khayran raggu dhib yara beriisu baa laga dharginiye hilib si fiican loo kariyey waa dhammaatay raggii waa ku daayeen mid walba afkiisuu feedhanayaa khalaas cuntadiisuu cunay waa dacsanayaa raggu halkaasaa lagu kala faataxaystay taasi mashaakil maaha waa maalin cad waa duhur ragoo markaa soo qadaysaan imaada alxamdu lilah waa yimaadeenoo waa soo qadeeyeen waa cuneen waana kaa tageen laakiin mushkiladdu hadday soo socotaa habeenkii dhallinyarada yaa loogu yeedhayaa xaggee lagu qabtay arooska hotel miskiin faqiir dhulku soo dhaqaa wiilku jaamacad buu dhameeyey hadda wuxuu qaataa lacagtan dawladdu ay siisay ardaynimada ayuu qaataa meel yar buu soo nadiifiyaa aabbihii iyo hooyadii cunaha isqabtay yaa wax yar xoogaa usoo tuuray miskiin habartii gabadha dhashay dhinacan bay waxay leedahay waxba ma haysato ayadana hotel baa laleeyahay waa in lagu qabtaa cuntada inteeda badan bac madow baa lagu shubi maxaa dhacaya waa habeenkii dhallinyarada yaa la soo kiraynayaa waxaa la soo kiraynayaa qolo fanaaniin la dhaho ayaa la soo kiraysanayaa lacag baa laga bixinayaa qolyo buraanbura la soo qaadanayaa lacag baa laga bixinayaa oo buraanburku dhibba ma lahaadeen hadday gabdho keliya yihiin lacag baa la siiya dhibaato male laakiin meesha maxaa ka dhacaya waxaa ka dhacaya islaantan buraanburaysa gabadh iyo wiil ayna aqoonin yaa loo qori qabiilkoodaa loo qori oo magacoodaa loo qori markaasi halkaa ammaan bay ku taxi ma taqaano oga wada waxaa laga yaabaa kuwa aan tukanin waxaa laga yaabaa kuwa akhlaaq iyo dabeecad xun ay yihiin reerka ay labaduba ka yimaadeen waxaa laga yaabaa inay yihiin reer aan cibaadada ku wanaagsanayn markaasaa qabiilkii ay gabadhu ka dhalatay iyo qabiilkii uu wiilku ka dhashay ayaa saa ammaan loogu wada taxaya labadoodii baa loo iman labadoodii baa wiilka waxaa laga dhigi suusuubi mudh ah qiimo badan ragga ninka ugu geesisan ragga ninka ugu qurux badan ragga ninka ugu halyey ah ragga ninka ugu deeqsisan halkaasaa laga soo saari waxaa laga yaabaa inuu bakhiil yahay waxaa laga yaabaa inuu jabaan fula yahay xabad ridi karin dagaal iyo jihaad midna geli karin waxaa laga yaabaa gabadhii tii gaariga ahayday tii noocan ahayday tii sidan ahayday basari arraajo ah oo maxaa la waxaa laga yaabaa sakaraada inay tahy
waxaasoo dhan waxa weeye lacag baa lagu bixinayaa. qoladii heesta ayagu iska badaaba, qoladii muusikada ayagu iska badaaba. halkan baa rag iyo dumar habeenka duruuc la qabo oo sida loo labisan yahay rabbi og yahay. saacadee lagu gaadhayaa? saacadee lagu gaadhayaa? salaado ma la tukanayaa? saacaddii la dhihi jira rabbi baa soo dega. allahu subxaanahu wa tacaala yanzilu kula laylatin ila asamaa'i addunya وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدع إلى طبق الدنيا يمن بفضله فتفرج أبواب السماء وتفتح يقول أنا مستغفر يلقى غافرا ومستمنح خيرا ورزقا فيمنح. روى ذاك قوم لا يرد حديثهم ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا. ساعدي لدي جري ربي با سودغيتان كان ربنا من نقانا كيفية ما نقانو معتقد كأهل السنة والجماعة سيانو حقيقينو وحلا وحي كنت تعلقا إلهي سبحانه وتعالى صفات كيسة إيا تلماميسة وأن أرميننا كيفية ذنا من نقانو. الاستواء معلوم والكيف مجهول والإقرار به واجب والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة كما قال إمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة. وحان وقوضا ساعدي ربي أسودك سبحانه أولا وريا دنبي داف ربا وريا حاجة ربا وريا حاجة له وريا حنوصا وريا ضله ساعدا سارق يضمر انتي لاسكو دارو او موسيقى لقراعو او حمال لسميو ايا وحا صنما ميشا كدعايا. ولذلك وحا ضروري إلى نفهمنا أرنتاس ومهم جدا وي صادرات بالدنب بدن باكدعه ينزل ربنا ربي بسودك ساعة داس إلى انتين لقو قارا وحا لقو قارا ساعة دن بأيا لقو قارا قورمضو ملين إيسان يا جماعة ساعة دين لقو قارا أوي ويلكي قبنا شلا الدور كيلوميري أوي ميل حقنا يا مدبا وحا لقا الشيغي انتي شلا الدور كي قبنا لوميري يا مركو هبينكي دنبا أفرت هبيني ما تشوغو إيا شنت هبيني مصلاة الصبح أيو يري والله أنا قروا واسكا سيحان دونا مركان قريقا تو محوكا وضع هدي قبل قريقا لسوق لي سوما دونيسو وحي نيني يحاسكي كدحي نعم شقنا لسكو يميد بقيبوي مركاسو وحولي والله أنا قروا واسكا سيحان يا شقا عن قبر يا مالي معان كوضع يا الإخوة هو يوم مروئة إيا قفا خيارة ميا ريركر ميا عرورتي سوحا كوب اللابا قوركو سو النعمة ما سوح إلهي لو حمدية ما سوح إلهي لو شكرية ما سو الله مدين لئن شكرتم لأزيدنكم وردان شكري دان والإذين زيادي. إلهي سبحانه وتعالى وحليه إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. قال إلهي حالة يكسو غيين كما بدل إلى نفتو ذا بدلان markii laga soo kala tago oo kaliya inta dayn la galay ninkii saas uu galgalanayaa toddobaadkii asagoo ku jira shahrul asal ayuu saa u galgalanayaa maxay yeelay suuqa ma mari karo intaasoo dayna baa lagu leeyahay reerkii intaasoo dayna buu ku dhisay gurigii intaasoo macsi ah baa soo gashay walla maalmo lama joogayo ama bilo إلا وحضر كيسا قوريجي انتا كندا إيا مرايكان إيا أوروبا إيا أستراليا قاردها لإسكاقيمي أو وحضر كي دون أركيسا مالين تدن بدومي أو كلا دقاقي دقوني قفاعضي صومالي بعد هذا دقوني قفاعضي مين لوغي من متقان خير كان محوكو دومي أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جروف نهار gurigii hore taqwa ayaa lagu dhisay gurigan dambe maxaa lagu dhisay yacni waxaa meel god ah oo dab ka shidan yahay haddaad daado meel godka dhinaciisa baan guri ka dhisanayaa soo gurigi duwi maayo kadibna godka ku dhici mays khasaaraha intaa dhan waxaa keenaya macsida ilaahay subxaanahu jalla wacala xumaanta ilaahay laga gelaya lagu bilaabayo gurigan aad arkaysaan ee la rabay ilaahay in loogu shukriyo subxaanahu wa tacaala
maxaan u baahanay marka waxaan u baahanay faata maa faat wixii tegey waa tegey caanadaatay dabadoodaa la qabtaa ciddii saa ku dhisatayey ilaahay u noqo oo gowsdambeedka maanta ku qabso cidda doonaysayna hadda ku dhis taqwo iyo alla kacabsi iyo aasaas adag inaad gurigaaga ku dhista ayaa la doonayaa maxaa qasaba dadku inay meelaha fog ay ka imaadaan ma qasaba nabigu sala allahu calayhi wasalam cabdiraxmaan bin cawf buu arkay oo uu ka soo carfayo barfuun caraf badan war cabdiraxmaan bin cawf oo miyaad aroostay markaasuu yidhi nacam markaasuu yidhi gabadha ma siisa meher markaasuu yidhi muxuu weliba nabi ku yidhi awlim walow bishaatin buu ku yidhi neef adhi aan allaha ka dhige weliima samee gabadhana timir jeexeed ba allaha ka dhige meher sii nabigu ma ogeyn sala allahu alay wasalam cabdiraxmaan bin cawf ay isla joogeen goor uu aroos galay ma ogeyn waa rasuululhudaa calayhi salaatu wasalaam nabigii saxaabada dagaal baa la aaday ama safar markii laga soo noqday oo magaalada madiine loo soo dhow yahay ayuu yidhi qof walba waad bixi kartaa waa socon kartaa jaabirow wuxuu arkay riti u socon la oo haddana doonaya inuu degdego war jaabirow maxaa kugu dhacay ritigaa ii socon la rasuulka ilaahayow oo aroos baan ahaayo inaan caawa dheelmadaan rabaa oo ma aroostay haa war ma gabadh baad guursatay mise garoob waa kii nabigu taladaa siiyey nabigu sal ly slam jaabir oo guursaday buuse ka warhaynin ujeeddada weyn waa shaciira min shacaa'ir alislaam waman yucadim shacaa'ir allah in adduunkao dhan laysu keena qasab maah haddii xumaan la yskugu keenayana way ka sii daran tahay qodobka waxaa nooga soo baxayaa aroosyadeenna khariban iyo midhaha ka dhasha waxaa nooga soo gudbayaa arooska wanaagsan ee la doonayo inaanu guryaheenna ku dhisno waa midka ilaahay lagu raaligelinayo waa midka ilaahay macsidiisa aan lagu samaynaynin waa midka wakhti wanaagsan lagu kala tegayo ciyaar maxaa habeen loo tumaa haddii run la sheegayo gabdhaheenna maanduurkii iyo barqinkii intaanu meherino aan nimanka guriga u gelino haddaan xataa dib u dhacno maan 6 maqribnimo iyo 7 maqribnimo guriga u gelino bal dadkii hore ku noqda dib siiradii ku noqda nabiga naftiisa sala allahu alay wasalam haweenkiisa goormo ayaa guriga loo gelin jiray markuu guursaday calayhi salaatu wasalaam guriga waa inaan saa u ilaalinaa oo haddaan qoys wanaagsan doonayno qoyska wanaagsan waxay ka soo bilaabataa dhisitaanka guri aan asaaskiisu adkayn meeqa dabaq baa la saari karaa 5 dabaq ma la saari karaa injineerka guriga yaqaana wuxuu ku dhihi gurigani 1 dabaq ka badan ma qaadan karo maxaa dhacay asaaskiisa ayaan adkayn aasaas adag baan u baahannahay maxaa qaylada keenay maxaa muranka keenay qajajacda maxaa keenay talaaqa badan maxaa keenay in lays afgaran waayo maxaa keenay guryo cusub inay degaan dubaan maxaa keenay walidaalika baa dhallinyaradeenna hadda inta ugu badan in badan oo ka mid a durba way kala tagaan limaada maxay u kala tagaan dhaqankii waddamaday joogeen iyo dhaqankii islaamka iyo dhaqankii labadii weele 3daasa isku dhacay markaasaa waxaa xoog batay dhaqanka meesha ay joogeen baa xoog batay oo dadkan aan la degannahay een deriska la nahay ee mararka qaarkood aan gabdhaha kala qabno adduunka meelay ka joogaanba saaxiibnimay iskula joogaan saaxiibnimadana asalkeedu waa bakhaylnimay ka timid in badan oo ka midana sabar iskulama joogaan sabar yari bay iskula joogaan dhallinyaradii isguursanaysa sabarkii baa ka dhammaaday in badan oo ka mida waalidiinta waxaan kula dardaarmayaa waddamadan galbeedka khaasatan jooga inay marka hore carruurtooda guur wanaagsan u diyaariyaan oo aad la sheekaysataan bal carruurtan qaangaarhka ah
gabadhaada guriga kuu joogtee 18 jirka 20 jirka la sheekayso wiilkaaga la sheekayso labada qof ee deriska ah istaqaana isgaranaysa isdabeecad fahmaysa waxaan kula talin lahaa dhaqanka annaga aad uguma wanaagsanine inay isu tagaan oo dhahaan labadeennan ilmadaan isku darsanno kadibna adigu gacanta midigta aan qabo anna gacanta bidixda aan qabto aan ka warhayno mas-uuliyaddana aanu barro inuu reer dhaqan kara aanu barro mararka qaarkood gabdhuhu markii ay rabaan inay i weydiiyaan guur wanaagsan iyo qaabka lagu heli karo ama aniguba aan weydiiyo waxay ku dhahayaan sheekh anigu waxaan doonayaa nin cuntada karin yaqaana nin cuntada karin yaqaanaan rabaa wiilkii muxuu ku dhihi gabadh dhuuban baan rabaa buu ku dhihi hadduu nin walba 10 sharti marka la soo baxo gabadhii waxaa ku qufulan fikir ah duulimaad xagga maskaxda lagaga duulay jikown baad ku jiri doontaa halkaasaa ku qufulan lama yaqaano noloshan sidii loo maarayn lahaa ama loo habayn lahaa ama laysu keeni lahaa inayna noloshuba cunto ahayna cibaado tahay inay noloshu cunto ahayna taaco alla tahay inay noloshu ayna waxa muuqda ahayna waxa dambe ay tahay oo janno iyo naar ah meherku hadduu dhaco waxaan oga gudbayaa biidni illaahi subxaana wa tacaala ninku wuxuu qaaday mas-uuliyad aad u weyn aayadaha lagu dul aqriya dhegayso yaa ayuha aladiina aamanuu ittaquu allaha xaqa tuqaatih walaa tamuutunna ila waantum muslimuun yaa ayuha annaasu ittaquu rabbakum aladii khalaqakum min nafsin waaxida وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما آيات كاس والتقوى ذا إلهي إيا شقادا إن إلهي لغا عبصده oo labada qof markii uu guur dhex maro waxa ay qaadeen maanta waa janno ama waa cadaab meeqa aayadood buu ilaahay qoyskaga warramay waa xuquuq soo korodhay waqifuuhum innahum mas'uuluun walacalla xalaqaadka soo socda bal xuquuqda inaan si gooni ah aan tooshka oogu ifinno ha ka maqnaani biidni illaahi subxaanahu jalla wacalaa guriga markii gabadha laguu soo geliyo 2 ragcadood baa tukanaysaa sida salaf ka sugnaatay yaa awoodi kara arrintaa waxaa awoodi kara cidda isku dooratay marka hore akhlaaq iyo diintu ma hadhayso waan isku dooranay akhlaaq iyo diin waan isku dooranay akhlaaq iyo diin arooskaan ku soo dhiganay akhlaaq iyo diin guriga markaan isla soo galana akhlaaqdii diintii baa nala soconays axadu salaf wuxuu yidhi geeri qof dhintay baan raacay buu yidhi markaan ka soo noqday baa waxaan u imaaday buu yidhi waxaan soo maray reer meel degan qof dumar oo weyn iyo gabarh marka ay soo jiidatay oo isla taagan guurmeer rawaan ahaa buu yidhi guurdoon si aan u helo albaabkii aan garaaci lahaa ama aan arrintan ka geli lahaa ayaa waxaan ku yidhi islaantii waan oomanahaye bal halay soo waraabiyo gabadhii bay ku tiri na orodoo banninka wax u soo raadi gabadhii intay wax iigu maqnayd ayaan islaantii hoos ugu sii dhigay gabadhan magaceed heblaayo ma la qabaa maya yaa dhalay hebel khalaas hoostaan ka xariiqay buu yidhi markii baan bilaabay buu yidhi muddo aan dheeraynba gabadhii gurigaa la ii geliyey buu yidhi intii la isiiyey mar alla markii aan guriga gala arrintaasi waxay soo koobaysaa dhallinyarada u malaynaya jacayl baan jillaa ku dhahaya intaas oo sana sheekaysanaya wax ay ka sheekaysanayaane waxay ku sheekaysanayaana la aqoon waan ku jeclaha iyo waan ku casayn iyo waan ku madoobayn iyo kalar baan ku marin doonaa iyo waan ku dheerayn doonaa waad gaaban tahay iyo
waxaasay ka hadlaan waxaana jacaylku kama turjuma saxda ah jacaylka saxda ah iyo mas-uuliyadda saxda ah waa gadaal wey waa markii reer la noqdo oo waxaa tahay iyo waxaan ahay aan isla meel dhigno taa gooni baan ooga hadli doonaa biidni illahi subxaana wa tacaala wakhtiyaalka soo socda haddii ilaahay nafta noo daayo mar alla markii guriga la ii soo geliyey ayaa 2 ragcadood galay buy oo sunno ah waa dad diin isku doortay mar alla markaan assalaamu calaykum waraxmatullah assalaamu calaykum waraxmatullah markaan idhi se gabadhiba gadaasheeday ku tukanaysaa markaasaan damca buu yidhi inaan laaco oo aan fooda qabto inay tacliim baan u baahanay sooma diin baan u baahanay inaan wax ku dhisno sooma dhallinyaradeennu in badan oo ka mida ma yaqaanaan xataa sistamka ma yaqaanaan waa in guurkeennu uu noqdo guur islaami ah oo asal u yahay oo hogaaminaya qur'aanka iyo sunnada ayadaana noolala qaala jala wacala yaa ayuha aladiina aamanuu istajiibuu lillahi walirasuuli idaa dacaakum limaa yuxyiikum waxa ku noolaynaya waa qur'aanka waxa ku noolaynaya waa qowlka nabiga calayhi asalaatu wassalaam waxa ku noolaynaya waa ficilka nabiga raacitaankiisa laqad kaana lakum fii rasuuli illahi uswatun xasana liman kana yarju allah walyawmi alaakhir mar alla markaan damca inaan laaco ayay tidhi bal u kaadi markaasay khudbo bilowday ina alxamda lilah naxmaduhu tacaala wanastaciinuhu wanastakfiruh wanacuudu billahi min shuruuri anfusina wamin ila aakhirih markaasay markay iftitaaxi dhammaysay ayay tidhi nin yahow kuma aqaano gariib baan agtaadana ku ahay maxaad cuntada ka jeceshood kuu kariyaa maxaad ka cadhootaa aan kaa ilaaliye eh maxaad jeceshahay aan ku siiye eh maxaa ku farax geliya aan qalbigaaga ku tallaale eh qaraabadaada yaad jeceshahay inaad soo dhoweeya maadaamaad jeceshahay qaraabadaada yaad necab tahay ood yaadan rabin inuu gurigaaga uusan kaa soo gelin si waxaadan jeclayn aana u samaynin khudbadaas ayay aqriday oo macnaheedu ay tahay gogol dhig ama gogol xaadhid shaksigani aan ku fahme ifaham waxaan doonayaa inaan ku fahme adigana bal ifaham ixtiraam waan ku ixtiraamayaaye aqri waan ku aqrinayaaye khudbada ayay gabadha u aqriday wiilka ninkuu u sheekaynaya wuxuu yidhi shacbiyow goor aan khudba la aqriyin bay gabadhani khudba ii dhibaatogelisan aan khudba aqriyo ina alxamda lilahi baan bilaabay buy goorta aan dhameeyaba waxaan bilaabay inaan dhaho waxaas waan jeclahay waxaana waan necbahay su-aasha waxay tahay jacaylka saxda ihi ma intaan la isguursaninba oo duuniyada iyo bustayaasha hoostooda ay foonnada laskala hadlayo waalidkana uu moodaya inuu wiilkiisu seexday ama gabadhiisu seexatay kadibna maantoo dhan la isku aqrinayo wax qalbigana jilcinaya dembina looga qorayo reerna aan dhisaynin makaasaa jacayl ah mise kanaan sheegnay baa jacaylka dhabta ah jiraa ku soo maraysa abaar baa ku soo mari barwaaqaa ku soo mari qaraabo ayaad leedahay qaraabo iyo qoys baan wada leenahay xanaaq baa imaanaya waa inaad dhakhtar noqoto anna aan dhakhtar noqdaa awlaad baa imaanaysa wallac baa imaanaya xaamilay noqonaysaa intaasoo dhan oo laysku daray mustaqbal baan leenahay dhaqaalaa naga dhexeeya maxaa naga dhexeeya dhaqaalaa naga dhexeeya maxaa naga dhexeeya wax walbaa naga dhexeeya waa inaan ka heshiinaa hadda marka wax kasta oo naga dhexeeya waa inaan meel isla dhignaa haddaad cadhooto maxaa ku dejiya maxaadse ka cadhootaa aan kaa ilaaliye
محاكو فرح قلية أنكو دذالة فرح قلين هذا أنكو دذالة محاد نعبتهاي فعل كاد نعبتهاي هذا كان نوعين نعبتهاي صعد كان نوعين نعبتهاي قرابة ياضا شعلين وهكذا إنا كل اليماه لكن وشدده وفهمتين كدمنا هالكافود أبد قبنيسا مركز الإلهي بريسا سبحانه وتعالى إلهي يو قبنا خير كذا كوي دي سنية إلهي يو ننكن خير كيسان كوي دي سنية إلهي يو قبنا شر كذا كان مغنقليا إلهي يو ننكن شر كيسان كان مغنقليا إلهي يو طبيعة أقرصون أنا أركين تيضحن الله هيتوس الله يو طبيعة دي سوى ناكسن إتوس وإن الله برق الله سمعيا انتو سجركو استعبانين انت أنقوغل وذا تجين وإن الله يسأل الله بريا سبحانه وتعالى أرأيت قبضان كلها دوره ما رأيت تأويل كان كلها دوره إذا جاءكم من ترضون دينه حتى حالة الدقنان بيقوبها هنتاي حالة داس إلا الدعيستو وإلهي لقبر يا سبحانه قف كان ساقع طبيعة كجرت هبل با هبل شعل لبدي سين دوت وبوحكو أركا صوما هبل با هبل نعب لبدي سين دوت بوكنا عصوما ورقبان داني محا شعل كذا كو محا كو بدين كرو كو بيري كرا محا سنعيب كذا كو إنا نعبات كيني كرا وحاصولا وإن لقشة كيس بإذن الله سبحانه وتعالى كلمة إن قضبك أقودا بيا مركي قول الله تقو وحو نبينا بري صلى الله عليه وسلم إنا هدنا إلهي برينو أو وحا إلهي نصين دونو أولاد عن إلهي أبرينو أو الشيطان كو إنو الشركان لنا نغضو أو الشيطان وحنا قدر صدا إنا إلهي كما قال الله بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا إله يو الشيطان كان نقفوه هدادا دعادا كدو عيسن نيه هدادا قبريه دعادا كدو عيسن حالة قوشة لبدي نكلي أماها شيطان بصدح يدنكو المهد دشان نكلي الميدان وضعلين شيطان بايد الله داري اللهم جنبنا الشيطان الله يو شيطان كان نقفوه وجنب الشيطان ما رزقتنا واحد نقول أرزوقي سنة الله وشيطان كفوه هواكو وحيدها المتغانان قورت إلما الله يابان واليهودي سيمرك ورابا بسك الله قبل هبين كاسي كوضان شيطان باشرك الله هابي كوضا أولاد دين ما أنت على كيسانا يابك بدن إلا لي بيهي إن بدنو كميدا إن النوع كل شيء بيقو بدنت أو الشيطان كبلغ النارين أن استبق بنو أو الشيطان كان يسكن نارنو أو قيسس كأن أنوناقا كل سنو حلقة وحنكو قبقبي بإذن الله سبحانه وتعالى دعاء سيادة إلى نكود ذالو خير كأننا أن كل سنو التقوى كان فوين الشيطان كا إيا وحل لمتك حلقة صوصعة بإذن الله سبحانه وتعالى خير لسن وحي اللي قربي أيان كالي دونا إن شاء الله تعالى انت أنو كاكل مينو فردقان متك حيقة وحال إذن كاكتك يا حفظك إلهي إيا أمانة إلهي والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.